ninka dilay Shinzo Abe ayaa rumaysnaa in ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Japan uu xiriir la lahaa koox diimeed uu ku eedeeyay in ay mas'uul ka tahay dhibaatooyinka dhaqaale ee hooyadiis. Tetsuya Yamagami ayaa sidoo kale bilo qorsheynayay weerarka isaga oo gurigiisa ku samaystay qoriga uu ku dilay Abe. Sida ay booliiska u sheegeen warbaahinta, muuqaalo uu baahiyay telefishinka NHK ayaa muujiyay Shinzo Abe oo taagan masrax uu taageerayaal kula hadlayay markii uu nin wata shaati leh midab cawl ah iyo surwaal qaxwe ah uu bilaabay inuu gadaal kaga soo dhawaado, kadibna wax kala soo baxay boorso uu bilaabay inuu toogto. ugu yaraan 2 xabad ayaa muuqday in la riday, kuwaas oo ku dhacay ra'iisul wasaarihii hore ee Japan. Yamagami oo ah nin aan shaqayn ayaa keligiis noolaa, umana jawaabi jirin dadka marka ay la hadlaan, sida ay dariskiisu u sheegeen warbaahinta Reuters. Waxa uu rumaysnaa in Shinzo Abe uu taageeray koox diimeed ay hooyadiis ku hanti beeshay, sida ay lacag ugu deeqaysay. Waxaa sidaas sheegtay wakaaladda wararka Kyodo oo soo xiganaysa dembi baarayaasha. Hooyaday waxay ku qafiiftay koox diimeed aan nabcahay, ay Yamagami ka soo xigteen Kyodo iyo warbaahinta kale ee Japan. Booliiska gobolka Nara waa ay diideen inay ka hadlaan arrintan. Warbaahinta Japan ma shaacinin magaca koox diimeedka uu Yamagami u careysan yahay. Yamagami ayaa waxyaabaha uu ka sameeyay hubka ka soo iibsaday online, wuxuuna bilo ku bixiyay qorshaynta weerarka, isaga oo xitaa ka qayb galay olole doorasho oo kale oo ka hadlayay Shinzo Abe oo ka dhacay meel 200 oo mayl u jirta halka uu deganaa. Kahor inta aan go'aansanin inuu qore u adeegsado weerarka, wuxuu ka fikiray inuu isticmaalo bam, sida ay sheegtay warbaahinta dawladda ee NHK. Yamagami ayaa ku noolaa dhisme ka kooban dhowr iyo 10 dabaq oo uu ka deganaa dabaqa 8aad. Mid ka mid ah dariskiisa oo ah haweeney 69 jir ah ayaa sheegtay inay aragtay 3 maalin ka hor dilka Shinzo Abe. Waxaan ku yidhi hellow, balse wuu iska kayindha tiray. Hoos ayuu eegayay isaga oo aan xirnayn face mask-ka. Wuxuu u muuqday qof aan deganayn, ay haweeneyda oo magaceeda ku soo gaabisay Nakayama u sheegtay warbaahinta Reuters. Waxayba la ahayd inaan u muuqan. Wuxuu u muuqday qof ay wax dhibayeen. Shinzo Abe wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa dalka Japan. Wuxuu xilka hayay 2006 ilaa 2007 iyo sidoo kale 2012 ilaa 2020 aan soo dhaafnay. Axmed Garaad, Ibro Radio, Nairobi.